halka ka dhacday kow laba diiwaangelinta oo hawl muhiim ah oo gobolkan Maroodi Jeex ka bilaabmaysa inaan ka hadlo marka horeysa waxaan tacsiir u dirayaa dhammaan dadkii eheladii iyo qaraabadii dadkii maaragtay falka waxshinimada ah ee 29 Oktoobar dalkeena lagu soo qaaday ee lagu beegsaday madaxtooyada xafiiska Itoobiya iyo UNDP tacsiibaan u dirayaa marka horeysa ilaahayna waxaan uga baryayaa kuwii dhaawaca ka soo doogayna inuu Ilaahay caafimaad siiyo kuwii kalena Allah u naxariisto laba waxa laga maarmaan ah inaan xusuusino imisa fal oo argagixisado ay ku soo qaaday Soomaaliya kii ugu horeeyay baabuurka UNDP 19 bishii 9 2002 wuxuu ka mid ahaa falalka argagixisada ee lagu soo qaaday dalkeena nin u dhashay Martin nin loo jiray oo hotelka Star lagu diray 30 December 2002 wuxuu ka mid ahaa falalkii argagixisada ee dalkan lagu soo qaaday Annalena Tonoli 5 bishii 10 2003 gabadhii nurse-ka ahayd ee Boorama lagu dilay waxay ka mid ahayd falalkii argagixisada ee lagu soo qaaday dalkan waxa ku xigay 22 November 2003 falkii lagu dhacay lacagtii wajaale oo ninkii shalay qiranayay ana ka dambeeyay waxa ahaa in Cabdi Godane oo madax ka ahaa waxa ku xigay dilkii gabadhii reer Kenya 19 bishii 3 2004 oo diin laga fuliyay waxa xigay howlgalkii la doonayay in wax lagu yeelo doorashadeennii baarlamaanka ee 22 September 2005 waxa soo dhan waxay ahaayeen falal argagixiso oo lagu beegsanayay in Soomaaliland lagu khalkhalgeliyo maadaama ummadani waxyaabo badan dadaal badan ay sameysay oo aan oran karo kuwa sheegta al-shabaab ay ashayaadiin badan ugu waqaana ashayaadiin baan waqaana ay rabaan inay Soomaaliland kala mid dhigaan meelaha waxyaabaha ka dhacaya waxaan xasuustaa berigii u horeysay lamaanihii sheekh la dilay iyo Annalena oo ahayd 2003 inaan idhi falalkaas waa argagixiso oo dadku ay la yaabanaayeen oo aniga lahaa maxay dalkeena argagixiso loogu sheegaya ka sameeyay waxa xusuus mudan waayo qofku hadduu iska dilayo dad bini aadan oo wax dambiye geysan magac kale oo markaa loo sheegi karo oo aan argagixiso ahayn run ahaantii ma jiro adduunka waad ogeydeen 3 maalmood u dambeysay Mumbai wixii ka socday Mareykantii ku dhacday waad ogeydeen 11 September maxaa laga bartay waxa la isweydiiyay marmarka qaarkood war waxaan dhacaya maxay wax looga qaban waayay waa su'aalaha laga yaabo inay dadkeena ku soo noqdaan markii la qiimeeyay xaaladahan dhacaya waxa lagu qiimeeyay waxani mal ogaan kari waayay maxay looga hortagi waayay waa waxaan ku soo dhici karin ba maskax bini aadanka waxyaabaha noocaas inay dhacayaan Mareykan oo kale diyaaradahoodu inay duulaan oo magaalooyinkooda galaan de wax maskaxda Mareykanka ku soo dhacaya maahay waxaan ku dadaali doonaa xukuumadahan bal intayada aqoonta ciidamada amniga kor loo qaado si ay baraarug u yeeshaan lagaga hortago dhacdooyinkan tii baarlamankeena nasiib wanaag waxa suuro gashay inaan si ogaano laga sii howlgalay waxa la sii ogaado waa laga hortagi karaa laakiin waxaan la sii ogaan
dhibaatadii si yeelanaysa in laga hortago baaristii meel fiican bay maraysaa waxa fal dhacay way ku jireen dad shisheeye innaka u badnayn markastaba innaka u badnayn dadka sameynayay dad innaka la duufsaday oo quraanka shaydaanka ee diinta islaamka aan ku jirin loo akhriyay ayaa falalka inta badan adeegsada Soomaalidu waxa ku mahada gudun yahay ma goyseen hadduna barkay kugu jir ninkaas qarxiyay ee hargeysay noogu yimid haddana ninku qarinayn oo aanan alaabta soo ururinayn ma dhici karteen inuu lagu qarxo waxa markaa loo baahay shacbiga Soomaaliland inaan kulligeen soo wada jeedno kulligeen boolis wada noqono baa loo baahay oo waxyaabahan ka dhacaya caalamka aan aragti mid ah oo wadaniyada anigu aad uga amaanaya shacbiga Soomaaliland inay markastaba aragtida leeyihiin oo markastaba falalka dhacayay ay gacan ka geysteen aad uga amaanaya run ahaantii waxaan soo jeedinayaa maanta inaan baraarugeena ku ka weyn qaadano waqtiyada ay dhacayeen waxa ahayd waqtigii doorashadu horeysay dawladda hoosaan sameeyay يعني waxa la inoo diidayaa inaan dawlad noqonaa la nagala dagaalamaya ujeedada la nagala dagaalamay falalkaas oo dhan waxay dhaceen waqtiyadii doorashooyinkii aan bilowday dawladda ugu hooseeyay 202 203 intii madaxtooyada aan bilowday waxaan xasuustaa berigii ingiriiska tagayay 2004 13 Maars baan ka baxay halkan habeenkii anoo Addis marayaba waxa la sheegay xawalaha ingiriiskii halka ku aasan dagaalkii labaad in habeenkii la jabiyay maalinta diinqa lagu dilay qolada UNHCR loo galayna maalintii baarlamaanka ingiriiska ka hadlayay waad garan karaysaa markaa inaan target nahay oo dagaal oo inagu socdo loola jeedo in qarannimadeennan iyo jiritaankeena ma ahin dagaal loola jeedo aniga oo shakhsi ah ama qof kale oo shakhsi ah waa dagaal loola jeedo maartaanay Somaliland iyo qarannimadeeda taa anu waxaan u soo jeedinayaa shacbiga halkan aan u marinayaa inay sidaa u ogaadaan waxa muuqata oo jirta oo maanta in laga qarsooneyn caruurteeni oo magaalo kasta laga kaxiyay inamada shahaadiinta in laga noqday ee koonfurta jooga Afghanistan iyo in Cabdi Godane ay madaxda ka yihiin ayaa caruurteena halkan ka kaxeeya oo halkaas jooga oo la lugooya oo qaarna halka ay ku dhintaan qaarna la inoo soo tababaraayo la inoo soo celiya waxa muuqata oo halkan jecelahay inaan fariintan ka gudbiyo inay dad waaweyn oo xitaa culimadeena waaweyn ay ku jiraan caruurtoodii qaarkood ay Kismaayo iyo Xamar iyo ku maqan yihiin ma oran karo iyaga diray laakiin way ka baxsadeen waxaan leeyahay geesinimo u yeeshay dawladda ku soo ogeysiisaan haddaad u yeelan weydaan waxaan u qaadanaynaa inaad raali ka tihiin ninkii soo sheegi waayay inuu raali ka yahay baan qaadanaynaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa dawladda Djibouti iyo madaxweynaha Djibouti oo run ahaantii daawaceenii la gacan ka geystay أنا مدحوينها مركي هو رسيل صهد تلفون يقول صهد إسلا قلب تيبا ورانتي إن بدل النقاضي واحد بدل إنه كتردون وحكرون هالكلام محد يقول عليه يا دمان دلك عالم كا أنتو هذا بدل وكسو جوابي ومارتاني تعسي كسو دلي فالكن نقول لعي وحكرون هالكلام ذيك الشيء يا إنا نقد بيه ليش عالم كباب يتاجروا إلى نجسيان sidii aan ula dagaalami lahayn cadowgan bani aadamka waa cadow bani aadam bal oran kara ee cadow cid gaar ah haysta